jacaylka ha guuleysto ha waaro. Soomaaliya jacaylka aniga gabadhii xabsaa waa si joognaa, xaaskay waa si joognaa. Noo soo duceeya intii taageersan. Alxamdulillah waa ku faraxsanahay. Maxkamadda sida noo sharaftay oo aniga xaaskay hornimadeeda noo sii waa ku faraxsanahay. Alxamdulillah waxaa u mahadcelinayaa dadkii arrintan ka qayb galay oo noo soo rigeliyay inay noo fuliyaan. Marka dawladdana si wanaagsan noo soo dhaweysay waana ku faraxsanahay. Dadkii arrintan hays oo kale hays waxaa ka faa'iideystaan fursaddan oo hadda idin muuqato. Aniga xaaskayga hornimadeeda waa la siiyay waana ku faraxsanahay. Marka dawladdan ugu mahadcelinayaa. Qofkii arrintan aniga haysatana waxaa la rabaa inuu fursaddan ka faa'iideysto oo macnaha sidii reerkiisa u midoobi lahaa. Waxaa waaye inuu arrintaas ka fikiro u imaado dawladda si wanaagsan lagu soo dhaweynayo. Nimanka saaxiibada oo aan kale waxaa fariinta u diray macnaha inay ka faa'iideystaan fursaddan oo hadda si aan hadda ii soo dhaweeyo kale loo soo dhaweyn ayagan. Waxaa la rabaa inay fursaddan si fiican ugu faa'iideystaan oo inta imaadaan saas adiga noloshii shalay aan ku jiro noloshii maanta hadda aan ku jiro waa kala duwan yihiin. Nolosha hadda aan ku jiro waa nolol fiican oo maasha Allah oo wax walba ku dheehan waaye. Islaamnimo ku dheehan. Marka tii shalayna tii oo doorka lagu jiro mahayno taas adiga tana ku faraxsanahay. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo bogaadiyo oo halkaan uga faa'iideysto maxkamadda ciidamada qalabka sida dhammaan ayagoo isku duuban iyo gaar ahaan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida. waxaan leeyahay waan idinku bogaadinaa hawshan aad qabateen waan idinku dhiirigelinaa. sidoo kale fursaddan helay walaalkay Abshir waa nin dhalinyaro ah in muddo ahna qolooyinka cadowga ah la shaqaysanay. waxyaabaha loo sheegay oo asiga noo sheegayna waxaa ka mid ah in maaragtay la maran habaabiyey oo loo sheegay meel aan islaamnimo ka jirin in lala dagaalamayo. halkan wuxuu indhihiisa ku arkay in islaamnimo jirto, in horumar jiro, in dawladnimo jirto arkay. maxkamadda iyo wasaaradda gaashaandhigaba oo kaashanaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ka shaqeeyaan in cadowgu ay jab u geystaan nooc kasta ahaadaan. sidaas si la mid ahna waxay ka shaqeeyaan cadowga kuwa ka soo baxa ee raba horumarka dalka iyo dadka gaaray inay la tiigsadaan sidaan oo kale garab ay u siiyaan uga warqabaan u doonaan cadowga dhexdiisana uga soo bixiyaan. taas macnaheedu waxaa tahay maxkamaddu inay wax tooga karto waxna noolee karto. waa inay jaceylna samey karto lana xisaabtami karto cadowga meel walba ay joogaan. waxaan idin leenahay cadowga ka soo taga oraxda ka soo taga. maalin kasta waxaad ku jirtaan in xabado idinku dhacdo oo xabadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo droniskooda iyo diyaaradahoodaba ay idinku dhacaan oo aad ka orodaan. waxaad heli kartaan noloshaas aanta. waxaad heli kartaan noloshaas ka fiican. waxaanu ku wareejin doonaa oo senatarkiisana uu ku wareejin doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo waxa uu ku dhisan lahaa aqalkiisa biri uu ku noolaan lahaa. waxaa laga warqabi doonaa noloshiisa. waxaa laga warqabi doonaa